السلام عليكم أصحابته وأنا سلامي دمانتين maanta waxaan bilaabanaynaa mashruuc aan ugu talagalnay in aan ku caawino software graduateska ardayda Soomaalida ah ama jaamacadaha ka qalin jabiyey ama ka qalin jabin doona waxaan idiin soo gudbin doonaa aniga oo ah Axmed Kaafi ama engineer Axmed Kaafi dadka sida ii yaqaanaan badankood waxaan ahay software engineer senior software engineer weliba oon degan wadanka Ingiriiska kana shaqeeya waxaana ku bartay wadankan sidoo kale waxaan ahay milkiilaha Lul Solutions shirkadda la yiraahdo ee software ka samaysa ama applicationada ha ahaado ama kuwa computerada lagu shubo ha ahaado ama botska chatbotka loo yaqaano ha ahaado waxaan sameeyey ama shirkaddeedu ay samaysay software loo yaqaano Somali app oo Soomaali badan oo ka badan ilaa iyo ku dhow 100,000 oo qof saacadan ay isticmaasho waxay kaloo sameynay Ethiopian app, Pakistani app, Turkish app, Malaysian app oo ah applicationo lagu sheekaysto dad qaarkoodna qaybo guurdoona leh TV-yada iyo waxyaabo badan laga daawan karo marka waxaan go'aansaday in aan xirfadahayga iyo cilmigayga aan iyo waxyaabaha aan bartay aan horey ugu soo gudbiyo qorshaha mashruucan hadda aan wadno wuxuu ku kooban yahay halkan midda koobaad horta waa in la abuuro meel platform ah ama goob mutacalimiinta Soomaaliyeed ee ay aqoontooda ku kala wadaarsan karaan ama ay isugu imaan karaan ay kuma taqaanaa si video ah sida hadda aan usoo bandhigayo kale ay ugu sheekaysan karaan waana ku guuleysanay xaqiiqdii koox baan isugu tagnay aan iska helnay Facebooka server weyn ba waxaan ku install gareynay software la yiraahdo open meeting si fiican baa gadaal uga hadli doonaa haddii la yiraahdo ujeedkana waxa weeye in mataqaanaa qofkii mutacallim ee adduunka meel kasta uu joogo uu doonayo inuu dadkiisa u faa'iideeyo inuu si toos ah ugu soo gudbiyo isagoo gurigiisa jooga dadkuna ay meeshay joogaan ka daawadaan ujeedka kale ee mashruucan waxa weeye in ardayda jaamacadaha ka qalin jabiyey ama kuwa weli aanan ka qalin jabinin la siiyo fursad ay iskula shaqeeyaan meel kasta adduunka kala joogaan oo ay soo saaraan software ay adduunka u suuqgeyn karaan isla markaana mataqaanaa dhaqaalo ay uga heli karaan fursaddan waa fursad qaaliya waxayna u baahan tahay hawl badan waana qorshaha ujeedka dhanna mashruucan aan u sameynay marka taageero badanna waan mataqaanaa qof kastoo shakhsi kastoo Soomaali aan jecelnahay inaan ka helno waan ka raadinaynaa in dhalinyarada jaamiciyaasha loo sameeyo barnaamij gacan qabasho ah iyo weliba mataqaanaa khibrad siin ah qofku markuu jaamacadda ka qalin jabiyo waxa jaamacadaha laga baro dadku waa theory wax maartay meel kasta adduunka Soomaaliya kaliya maahan ama mataqaanaa wadamada u dhow ee dunida saddexaad ama Yurub ha ahaato qofku markuu jaamacadda ka qalin jabiyo wuxuu haysto waa fikrad marka uu shaqo tago oo uu mataqaanaa la yiraahdo waxaan ku shaqee 2 sano oo cusub oo waxa u bilaabanaysa oo waxbarasho ku dhawaad ah baa u bilaabanaysa marka hawl fudud maahan marka qofku asagoo aan hadduu rabo hataa aan shaqo helinin weli maaragtay in khibrad la siiyo si uu shaqo ugu helo waa muhiim waxyaabaha kale oo aan mataqaanaa doonayo waxa weeye maadaama xaaladda wadanka Soomaaliya ama Somaliland ay adag tahay maaragtay in dhalinyarada la siiyo fursad ay iskugu xirmaan oo ay isla shaqeeyaan mataqaanaa oo ay si wada jir ah wax u soo saaraan waayo hal qof kaligiis waxba ma qaban karo in la gubaabiyo dhalinyarada jecel inay wax bartaan balse aan fursad helinin haddii waxa ugu weyn oo qofku u baahan yahay waxa weeye hagid xaqiiqdii adduunka maanta cilmigu internetkiibu ka buuxa jaamacadihii baa dhigahaya ma garatay qofka asagoo anigoo wadankan jooga oo Ingiriiska jooga waxaan xasuustaa jaamacad aaday kadib markaan jaamacadda aaday hal sanaan dhiganayay hal sano markaan dhameeyay wax allaala waxa inaan noqdo doonaya ma garanayo ilaa sanadkii labaad in inta macallimku inta coursework-gayga mid ka mid ah intuu ii dhiibay yiri mataqaanaa waxaad soo diyaarisaa coursework shaqada aad doonaysid inaad mustaqbalka qabatid taasi waxay i sababtay inaan research sameeyo inaan shaqooyinka mushaarkooda fiiriyo inaan shaqo walba mataqaanaa software-ka looga baahan yahay qofku iyo mataqaanaa khibradaha looga baahan yahay inuu yaqaano aan daraasaad ku sameeyo wax badan baana ka bartay taasna wax ii ogolaatay anoo sanadkayga labaad ku jira in aan ogaado maaragtay waxyaabaha aan u baahanahay waxa hagitaankaasna wuxuu ka imaaday jaamacadda ma garatay marka
dad badanoo waxaa jira fursadaas aan helin inaan doonaya inaan khibradaha noocaas oo kale aan la wadaago. horta guusha ugu horeysaan sameynay waxaa weeye softwarekan hadda wax ku record gareynayo oo webinarska lagu sameeyo sida webinar ahaan baan u record gareynayaa. waxaa weeye waxaan ku sameynay si wada jir ah ayaa tiimka u sameeyey. gaar ahaan waxaan aad uga mahad celinaya maxamed cilmi oo waqti badan ku dhimay inuu mataqaanaa softwarekan rangareeyo oo hawshan suurtageliyo. waana waa kaa isticmaali kartaan open meetings, qof kastaana soo geli kara oo mataqaanaa doonaya inuu dadku wax u record gareeyo ama video ahaan u record gareeyo. waana qaabaad webcast ku galaysid kaliya weeye oo mataqaanaa dadkii doonaya inuu xataa casharo ku qabto dad badan baa meesha iskugu imaan kara sidaan horey usoo sheegayba. waxaan doonayaa horta dhalinyarada inaan hal mid ku goobaadiyo oo ah mataqaanaa inaan u sheego meesha adduunka dhaqaaluhu uu ka jiro, adduunka dhaqaalihiisu yaallo. xaqiiqdu waxa weeye adduunka dhaqaalihiisu maanta wuxuu galay waxa computingka la yiraahdo ama software gaar ahaan 10 nin oo adduunka ugu taajirsan 6 ka mid ah maaragtay waxa weeye waxay ka taajireen software iyo cilmi ay mataqaanaa la xiriira computingka bay ka taajireen. waxaa ka mid ah Bill Gates oo dhaqaalihiisa shirkadda Microsoft u shaqeeya oo dhaqaalihiisa lagu qiyaasay 72 milyan. sidoo kale Mark Zuckerberg waa taqaanaa ninkii mataqaanaa Zuckerberg waa taqaanaa ninkii Facebook sameeyey. maanta adduunka dadka ugu taajirsan buu ku jiraa. dhowr sano ka hor bayna ahayd mataqaanaa markuu jaamacadda ka qalin jabiyo ka baxay. Larry ninka la yiraahdo Ellison oo ninkii Oracle bilaabay ah isagana. sidoo kale waxaa ka mid ah ninka Amazon, shirkadda Amazon e-commerce-ga aad aragteen weyn mataqaanaa hadda web hosting iyo serverada iyo wax walba dadku ka isticmaalaan sameeyey. Jeff Bezos baa magaciisa waxa u maleynayaa magac waalan wax. ninkaasna waa jira. Larry Page oo isagana sameeyey maxaa la yiraahdaa Google ragii bilaabay ah iyo Sergey Brin oo isagana ay saaxiibo ahaayeen oo isla bilaabeen Google. nimankaas 10 nin oo adduunka ugu taajirsan bay ku jiraan. waxyaabaha kale oo aan doonay inay dhiirigelinta dadka aan siiyaan waxaa weeye Dong ninkan la yiraahdo intiina maqashay waa taqaanaa waa wiil Vietnamese oo sameeyey game la yiraahdo Flappy Bird ama Flappy Bird oo ah game aad adduunka loola dhacay oo mataqaanaa 2 week buu inta meel fariistay buu ku sameeyey gamekan. kadibna mataqaanaa Play Store App Store-ka iPhone-ka ayuu geliyey. dhowr bilood ka bacdi maalin ilaahay keeno waxaa mataqaanaa uu ka heli jiray gamekii uu geliyey. wuxuu ku daray xayeysiinta qaabka lacagaha looga helo gameka oo mataqaanaa xayeysiin yar baad gelinaysaa meel dadka qof kastoo download garaysta ama xayeysiintaas arka lacag baad ku helaysaa. maalintii $50,000 buu mataqaanaa ka helay ilaa markii dambe inta uu wareeray yiri waa xiraya nolosheedii bay wareerisay mataqaanaa kaamristayaal iyo bahashiiba dadkii baa wareeriyay lacag ka badan ma doonayo wuuna xiray xaqiiqdii kadib maqan inuu ku soo noqday. waana qof mataqaanaa nolol adag iyo mataqaanaa 14 jir ku bartay programming mataqaanaa isagu isbaray badankeed adana mataqaanaa jaamacad xoog ku galay wax wadamada adduunka lagu yaqaano technology soo saara ma ahan sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dadku mataqaanaa qof halkaas joogo intaas maartay qarasha ka sameyn kara ilaa akhirkii iska iibiyay kambanigii oo dhanba application-kii oo dhanba. midda kale aan doonaya inaan arko waxa weeye dhaqaalaha 2018 meesha la saadaalinayo marka la eego appska waa applicationadan waxa adduunka hadda ku waashay software ugu dambeeya dadku adduunka ugu waasheen aad loogu mataqaanaa loo isticmaalo. waxaa la qiyaasayaa $75 bilyan in uu dhaqaalahaas gaaro. 2 shirkad baa hortiina taala oo aan ugu talagalay maaragtay inaad ku aragtaan 2014 taariikhda sida uu ahaa meesha uu marayay applicationadu iyo 2018 oo sanadka soo socda maaragtay meesha ay gaari doonto. haddaad fiirisaan dhinaca buluuga ah oo halkan qaybtan buluuga ah waa qaybta maaragtay gameska tilmaamaysa. tan waxay noo sheegaysaa dib aan u fiirino 2014 haddaa fiirisid 75% wax ku dhow gameska mataqaanaa ama applicationada telefoonada lagu shubto diyaarka ah waxay ahaayeen games. waxay kuwa yararka ah kalarada leh waa waxyaabaha kale ee gameska kale oo mataqaanaa application kale oo hoos yimaada sida social networking sida Facebook iyo Somali app. bookska kuwa lagu shubto mataqaanaa applicationada bookska la geliyo, applicationada music lagu xareeyo, kuwa mataqaanaa caafimaadka, kuwa waxbarashada, kuwa wararka iyo waxaas oo dhan inta kala soo harto dhanba wax ka yar 15% bay ahaayeen.
maantana 2018 oo hal sano ay ka dhiman tahay, dhowr actually bilood ay dhowr wiiga hadda nooga dhiman maanta taariikhda haddaan fiiriyo, hal sano iyo dhowr maalmood baa ka dhiman. maaragtay waxaa la qiyaasayaa in ka badan 40% iyo xoogaa ay kordheen kuwaas gameskiina mataqaanaa 60% ku dhawaad ay mataqaanaa ku ekaadeen. marka way sii badanaysaa tan game ma kuma tusaysa macnaha gameski inay dhimanayaan, balse waxa weeye fursadaha waxay ku tusaysaa maaragtay lacagta meesha ku jirta iyo applicationada noocyadooda kala duwan, iyo maaragtay dadku inta midaha ay ugu badan yihiin isticmaalaan kuwa social, sida ujeedaan sida social networking ayaa ugu badan marka laga reebo gameska. su-aasha aan jeclahay inaan idinkaga jawaab waxaa weeye sidee appska lacag looga sameeya. anigu application baa sameeyey, Somali app dhahadii sheegay, dadkan free bay u tahay, wax lacaga kama qaado, Soomaalidu lacag la'aan bay iskaga isticmaashaa, balse waxaan ku daray wax la yiraahdo advertising. advertising waxa weeye qaab xayeysiin yar oo midan halkan idinkaga muuqata ee koobaad ay install ku qoran tahay oo kala ah misalan shirkad Google ama Facebook baa code-kooda qaadanaysa xayeysiinta, application-kaaga ku daraysaa, ayaga iska diiwaan gelinaysaa. markasta ee uu qof arka xayeysiintaas ama uu ku dhufto ama uu install gareeyo application-kaas, adiga waxa lacag baa kuu soo dhacaysa. dad badan markaad heshidna waxa weeye lacagtaada way kusii badanaysaa. qaabkaas waa qaab aad dadku badankood ku isticmaalaan, waana qaab fiican oo application-kaaga dadku ay ku baranayaan, iyadoo mataqaanaa jajab fiicanna kaasoo gelayo oo iyadoo isbixin doonto haddii mataqaanaa dadkaagu ay bataan. qaab kaloo waxaa jira paper download la yiraahdo, oo iyaduna ay tahay in application-kaaga aad laba qaybood ka dhigtid, qayb free dadka darabta aad uga dhigaysid oo xayeysiin ku jirto. hadduu qofku xayeysiintaas samifo, wuxuu aadayaa qayb kale oo mataqaanaa uu download garaysanayo oo xayeysiintii aad ka bixisay iyo wixii dadka dhibayay hore la istaagayay, screenkooda qaafkood qaadanayay hadday rabto, markaas waad ka bixinaysaa. laakiin waa in qofkaas mataqaanaa application-kaas oo hal mar iibsadaa, hal mar buu iibsanayaa, wuxuu ka bixinayaa ama $2 ama $1, xayeysiin dambe muu arkayo, intuu rabona isticmaalaya application-kaas. waxaa kaloo jira qaab kale oo iyadana lacag looga helo oo la yiraahdo in apps. application-kaaga qaybaad ka dhigaysaa, qayb waxaad leedahay qaybta gurdoonka lacag weeye, qaybta hadalku waa lacag la'aan. qaybtaas qofku markuu galo qaybtaas waxaad leedahay application-ka dhexdeeda ayaa waxaad ka weydiinaysaa, waxaad leedahay okay qaybta aad doonaysa inaad access garaysid lacag weeye, waxaan doonayaa inaad lacag intaas la eg aad bixisaa. masalan tusaale hadda halkan idin hor yaalo kale waxaa weeye gameka poolka ay isticmaalaan mataqaanaa dadku isticmaalaan. haddii aad doonaysid inaad wax iibsatid wuxuu ku leeyahay 99 baan baad intaasoo credit ku iibsan kadhaa. meesha dhexdeedana qaab mataqaanaa credit card iyo telephone mobile payments iyo qaabo badan baa mataqaanaa baad uga qaadan kadhaa qofka. intaana cilmiga loo baahan yahay aana gelinin, maaragtay lacagaha marka xayeysiintu lacagta xayeysiinta iyo lacagta kale iyo wax walbaba gidi qofku wuxuu u baahan yahay maaragtay in uu lahaado meel uu lacag ku bixiyo isla markaana uu lacag ka helo. waxaan ogahay dadka badankood daawanaya maxaa la yirahdaa TV-gan ama programkan aan duubayo ee jooga Soomaaliya ama Somaliland ama meel kale mataqaanaa wadamada saddexaad adduunka jooga, aanan haysanin ama heli karinin account ay lacag ku bixiyaan ama lacag loogu soo shubo. iyadana qaab baan idin soo jeedinaya haddii ilaa yiraahdo, oo haddii la wada shaqeeyo wax badan looga dhaqi doono. marka programkan waxa weeye in dhibaatooyinka dhan ee dadka haysta halkaas ee ay horumarka ka hortaagan maaragtay in aan inta aan hal mar wada waajahno aan wax ka qabano. cilmiga loo baahan yahay si loo dhiso appska. xaqiiqdii hadda waxaa dhacday xafiis baan damcay inaan ka furto Soomaaliya, gaar ahaan laba magaalo baa aad u fiiriyay, Muqdisho iyo Hargeysa. raniga hada dadka mataqaanaa Soomaaliya anigu siyaasad ma garan, laakiin Somaliland midkiisu afkay ku socdaan leeyahay. marka labadaas magaalo maadaama inaan midkood aan ka furto, waxaan raadiyey dad cilmiga aan doonayay weliba applicationada aan anigu doonayo aad mataqaanaa featureful application u ah oo advanced cilmi badan u baahan inaan helo. in badan baan raadiyey. waxaad arkaysaa dadku
weli teknolojiyadii hore bay mataqaana aad ugu dhegan yihiin amaba qofkii mataqaana wuxuu bilaaban yihiin wax badan uma bilaaban wax academical kaliya u baahan yahay qof experience leh oo mataqaana 5 sano 6 sano Android sameynayay ama iOS sameynayay ama Windows app sameynayay ama backend sameynayay ama database designers ama sysadmins waawaye oo shaqaalaysiisan karo mataqaana oo aan xafiiska ku furi karo waxa igu qasabtay inaan Bangladesh xafiis ka furto oo mataqaana dad Bengali aan shaqaalaysiiyo talo igu kalaftay maaragtay hadda inaan cilmigayga iyo waxyaabaha loo baahan yahay iyo waliba jaamacadaha laftigooda ardayda waxyaabaha ay barayaan in maaragtay aan ka guubaariyo waayo jaamacadda qofku markuu galo waxa leeyahay waxaad baranaysaa waxaad noqonaysaa software engineer isma lahan qof walba markaa shaqo raadinaysid shaqadaada gooni baa mataqaana waxa lagu leeyahay Android developer baa tahay ama mataqaana backend developer baa tahay waliba backendiga si kala baxaya oo qaybo badan developers si kala yeelanaya ama database developer baa tahay ma quality mataqaana testers baa tahay ma sysadmin baa tahay maaragtay marka qaybahaas waxyaabaha aan doonayay mataqaana xataa jaamacadaha Soomaaliyeed ee ardayda waxbara in ay ardayga aysan just wax kasta aysan madaxa u gelinin qayb kaliya qaybaha ay u baahan yihiin maaragtay ay hal ugu dhiibaan qofka hadduu rabo hadduu qayb markuu qayb barta qaybta kale asagoo ha u sii gudbo oo koorsooyinkooda sida ku saleeyaan waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo halkan aan ku sheegay cilmiga loo baahan yahay si loo dhiso application qofku wuxuu u baahan yahay maaragtay horta applicationada waaweyn aad aragteen oo dunidu isticmaasho oo aad mataqaanaa featurefulka waxyaabo badan qabta maaragtay hal iyo laba qof ma dhisinin teams isku tagay ama company weyn oo team mataqaanaa support gareynaya ayaa dhisa teamskaas waliba ayaga qaybo badan u kala tiimam kala badan oo si kala baxbaxaya balse tan macnaheedu ma aha inuusan hal qof application dhisi karinin cilmi badan buu u baahan yahay ama dhowr qof oo isku tagtay application way dhisi karaan laftigoodu mataqaanaa laakiin ujeedku waxa weeye waqtiga loo baahan yahay iyo qofkan waqtigiisa ma aha muhiim ah inaad taad cilmi kasta oo qofkan team kasta uu u baahan yahay inta aad baratid ay kugu qaadato 5 sano ka bacdi aad application samaysid applicationka aad samaysay waxa weeye cilmi kala la soo daayay dadkii ku mashquulsanayd marka ujeedka saxda waxa weeye aan doonayo in maaragtay aan dadka u soo bandhigo qof walba waxyaabaha ay sameeyaan teamku waxay ka kooban yihiin user interface ama waxa la yiraahdo user experience UI designers UX designers oo teamka ugu horeeya ah oo mataqaana qofka client-ga la hadla oo requirement-ga iyo waxyaabaha u baahan yahay iyo design-ka sidoo ku faraxsan yahay iyo waxaas oo dhan sameeya waxa jirta client side developers wax la yiraahdo oo dadka dhinaca mataqaana client waxa laga wadaa system mataqaana server architecture waxa la yiraahdo waa laba qaybood waa qayb client iyo server client-gu waa sida mobile-kaaga oo kale aniga client-ga ah aniga ayuu application-kaagu mataqaana ay agtaala oo aan application-ka aan isticmaalaya laakiin application-ka markaan ku dhufto server bay ku xiran tahay server bay aadaa marka qaybta application-ka ee mobile-ka lagu shubayo waa client-ga qaybta u dhow website-ku qaybtiisa mataqaana waa client-ga user interface-kiisa waa client waxaas oo dhan marka qaybtaas dadka sameeya ama applicationada dadka waxa dad soo gaabiyo waxa laga wadaa dadka applicationada sameeya telefoonada lagu shubo hadan mobile development ka hadlayo marka way sii kala baxaan mataqaana iyadoo Android qofku mataqaana dad badankood waxa ku takhasusaan in Android kaliya ay application u sameeyaan shirkadda mataqaana shaqaalaha qaarkood waxay sameynayaan iOS bay sameynayaan shaqaalaha qaarkood Windows bay sameynayaan shaqaalaha qaarkood mobile web bay sameynayaan mararka qaarkood waxa arkaysaa Android-ka laftigiisa qayb kamid ah qaybtaas kaliya qaabilsan ama library qaabilsan maaragtay si qofkaas uu cilmigiisa oo dhan iyo maskaxdiisa oo dhan hal meel loogu waxeeyo sababtoo ah waxa imaanaysa hadduu qofku waxaan oo dhan isla sameeyo qayb mid walba qayb yar buu ka baranayaa hadhow cilmigiisa oo dhan wuu kala daadsan yahay meel fog buu kala jirjiraa laakiin hadduu hal wax sameeyo hadduu Android-ka ku yiraahdo Android basan sameynaya marka si fiican u barto oo design-kiisa si fiican aan uga dhex baxo ayaan waxa u sii gudbayaa haddaan doono iOS-ka aan ayadana sameynaya laakiin waxa jirta client side developer baa jirta ma garata marka waxay keenaysaa qofku mataqaana in uu cilmiga si fiican u barto aysan dhibinin waxa kaloo jira mataqaana iOS